waxay ahayd munaasabadii lagu soo xirayay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir oo ay kaalmaha koowaad iyo labaad ka galeen ciyaartooyda kooxaha gobolka Banaadir iyo Galmudug. Munaasabadan oo ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda. Ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay wasiirka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliya Mudane Xamza Saciid Xamza, isagoo u mahadceliyay dhammaan kooxihii ka qayb galay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir, wuxuuna intaa ku daray in wasaaradda ay qorsheynayso in la qabto ciyaaraha 18 gobol ee Soomaaliya iyo in ciyaaraha gobolada lagu qabto magaalooyinka kale ee wadanka. waxaan xoogga saari doonaa insha Allah inaan gobolada aan meel kasto in anagoo kaashanayna hay'adaha in garoomo laga dhiso meesha in ciyaaraha kaliya xamar in lagu dheelo waxaan rabnaa marka dambe in lagu dheelo maxaa la yiraahdaa ama lagu dheelo Baydhabo ama lagu dheelo Kismaayo ama lagu dheelo maxaa la yiraahdaa Garowe. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa u mahadceliyay dhammaan kooxihii kala duwanaa ee ka socda maamul goboleedyada iyo sidoo kale cid kasta oo kaalin ka geysatay tartankii quruxda badnaa ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda Muqdisho. Finaalihiisana ay wada ciyaareen kooxaha gobolka Banaadir iyo Galmudug. waxaan rabaa inaan dhammaan halkaan uga mahadceliyo ka soo qaybgalayaashii iyo mas'uuliyiintii u xil saartay hawshaas. runtii waxay ahayd munaasabad yani arrin aad u qurux badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu guuleeyay. waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha oo si gaar ah arrintaas noogu garab siinayay, si gaarana ula socday, inaan uga mahadceliyo kaalintoodii muuqatay iyo hambalyadii aan soo daahin oo ay noogu hambaliyeeyeen marka kooxda gobolka Banaadir ay ku guuleysatay koobka. runtii ma ahayn inaan guuleysano kaliya, laakiin waxa muhiimaddu ay ahayd inaan koobkaas martigelino nooguna bilowdo nooguna dhamaado si nabad ah. gabagabadii waxaa munaasabada ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, isagoo u mahadceliyay dhammaan intii ka qayb qaadatay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, wuxuuna intaa ku daray madaxweyne Farmaajo in dowladda ay qorsheynayso in ciyaaraha gobolada lagu qabto garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho oo dib u dhis ay ku sameysay dowladda federaalka Soomaaliya. sida mas'uuliyadda ku jirto oo miidiyaha runtii uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba ciyaaraha si u socdaan aad iyo aad ayaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa. waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaan leeyahay hambaliyo. xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guuleystay, waa wada guuleysanay. maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay, waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno, waxaan muujinay inaan walaalanahay. Si kastaba waxaa munaasabada lagu abaalmariyay kooxaha gobolka Banaadir iyo Galmudug ee galay kaalinta koowaad iyo labaad. dhinaca kale waxaa munaasabada lagu abaalmariyay shakhsiyaadkii ka qayb qaatay intii uu socday tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir 2020 oo ay finaalaha wada ciyaareen kooxaha gobolka Banaadir iyo Galmudug. Maxamed Xuseen Qaliinle, Goobjoog, Muqdisho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.